waxaan ku dhowahay inaan galo mid ka mid ah safarada ugu la yaabka badan noloshayda. Whoa, that was close. kumanaan kiiloomitir meel u jirta gurigayga, gaar ahaan bartamaha badweynta Pacifica, waxaa ku taala jasiirad fulkaana ah oo laga guuray, taasoo cid tagtay aanay jirin. Meel qarsoon oo jasiiradaas ka midana waxaa yaalla hadhaaga diyaarad ku burburtay dagaalkii labaad ee adduunka. In ka badan 80 sano kadib, cidina ma garanaysa meesha saxda ah ee ay tahay. sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan soo raadiyo oo aan soo helo meeshaas, laakiin tagitaanka halkaasi waa bilowga oo keliya. jasiiradani ma laha wadooyin, ma laha kaabayaal, ma laha koox badbaadin, mana laha biyo macaan. keliya waa kayn cufan, dambaska fulkaanaha, kulayl daran iyo god fulkaana oo wakhti kasta noqon kara mid active ah. Oh my freaking god! markii ugu dambeysay ee fulkaanahani qarxay waxay ahayd 2003. haddii aan doonayno inaan helno diyaaradana waa inaan ka gudubnaa meesha ugu sareysa jasiiradan oo dhan. Found a new species. Uh-oh. That's not good. There's like a 30-meter drop. It could be deadly, he said. That's the last thing. I think this is the dumbest thing I've ever done. That is insane. su-aasha haddaba ma aha in burburkii meesha yaallay iyo in kale. su-aasha saxda ahi waxay tahay intee in leeg ayaanu diyaar u nahay inaan u horno si aan u helno. jasiiradaha waqooyiga Mariana waxay ka mid yihiin meelaha ugu fog ee dadku degan yihiin dunida. halkaa inaad gaadho ayaa keligeedba ah safar dhammaystiran. waxaan ka duulay Norway oo aan tegay koonfurta Kuuriya, kadibna koonfurta Kuuriya ilaa Guam, haddana Guam ilaa Saipan. dhowr usbuuc ka hor intii aan go'aansaday inaan tago jasiiradaha Mariana, duufaan weyn ayaa ku dhufatay gobolka. waxa la xaqiijiyay inay ahayd duufaan heerkeedu yahay heerka 5, taasoo ahayd duufaantii ugu xooganayd kulaylka dunida sanadkan. sababtaa darteed duulimaadkii aan ku tegayay jasiiradda ayaa si lama filaana loo joojiyey. ilaa muddana daacadii waxay u ekayd in safarkan oo dhammi aanu dhici doonin, laakiin si ay ahaataba daqiiqadii ugu dambeysay duulimaad cusub ayaa furmay, taasaana ahayd fursadayda keliya ee aan ku tegi lahaa jasiiradda. sidaa darteed waxaan ku qasbanaaday inaan Saipan kaga imaado doon. weliba aan idinla wadaagay weligay badda sidaa ugumaan xanuunsan. mar waxaan joojiyeyba inaan ka warwaro helitaanka diyaaradda oo waxaan bilaabayba inaan ka fikiro sidii aan uga badbaadi lahaa safarkan doonta. haddaba kadib si kedisa markii aan wax kale oo aan biyo ahayn arki waayey muddo dheer, waxaa soo muuqatay ugu dambeyn jasiiraddii. waa inaan ka soo degnaa doonta oo aan tagnaa xeebta, sababtoo ah doonta naguma dhoweyn karta ilaa xeebta. Falaad, ma waxaad tiri libaaxbadeed baan arkay, halkaa gadaal baad ku aragtay sax? taasi waaba cabsi hadda. umaan malaynaynba in libaaxbadeedku sidaa ugu soo dhawaada xeebta. nooceebaad u malaynaysaa inuu ahaa libaaxbadeedkaad aragtay? way tib buu ahaa. miyaanu kaasi ahaynka ugu halista badan? maxaa yeelay waxaan maqlay in libaaxbadeedka way tibku uu marka militari oo quusay cunay dhammaan dadkii saarnaa. boqolaal qof bay ahaayeen. They're like dogs. They're like dogs. They are talking in the, like in the open sea. Dude. taasi waa waali runtii, waayo waxaan islahaaba doonta ka bood oo dabaalo. waynu ku qasbannahay inaynu galno. ma gelayo biyaha libaaxbadeedka ku jiro. I mean, I've been traveling for 48 hours now and I'm jet lagged, and this boat ride was so bumpy for like 4 hours, and now what the hell was that? That was the anchor, I guess. Hopefully not another shark. niyo waad dabaalanaysaa. kan waxaa la saarayaa boorsooyinkaaga. That's from my backpack. haa, waa inaad ku booddaa biyaha oo aad la dabaalataa libaaxbadeedyada. Oh, you see the sharks too? I can smell them. This GoPro has been through a lot of stupid shit with me, so this is just another one of those. Good. If I get eaten now, it's so your fault, Vlad. I'm not really moving that fast. hagaag, tani waa jasiirad cidla ah oo saxa. waxaan iska dhigay mid baxaya. okay Falaad, markaa ma waxaad leedahay iminka halkan cidina horey uma iman? Never. waa maxay waxani? laakiin waxay u badan tahay in duufaantu soo riday sax? Yeah, absolutely. weligii hore uma saameyn jasiirad. It's first time for everything. kani maqunbaa? haa, mid yar weliba. dhagax baan ku burburinayaa, kadib waan eegayaa, laakiin wuu yar yahay weli. waxba kuma jiraan. aad buu yar yahay, wuu madhan yahay. haa, inaan ku dhagaystay ahayd. adaa khabiirkii ahe. waxaan u malaynayaa inay wax yar nagu adkaanayso inaan halkan ka baxno. waxaana sidana alaab culus oo badan runtii. aad bay u dheer tahay. Pretty steep. It's almost like you have to climb a bit. Be careful.
don't trust these rocks. It's not either even rocks. Yeah, it's not even rocks, it's just mud. okay marka hadda waa inaan helno meelaan hoyano caawa maya waxaan joogi doonaa xeebta allahaa xeebtaan joogaynaa berri baynu eegaynaa waddada suurtagalka ah ee aynu qaadayno Yeah, it's harder terrain than it looked like from the ground. marka waxaan u malaynayaa inay berrito ay tahay inaan raacno waddadan dooxada waayo waa jihada aan u soconayno sax haa waxaan tegaynaa dhinaca meesha ugu sarraysa ma xagga ugu sarraysa buurta haa ma ku kalsoon tahay inaynu gaadhi karno haa waan ku kalsoonay haddaba ninkan falaad waxa uu ahaa hagahayga safarkan laakiin runtii anigu si fiican uma aqoon isaga waxaan ku kulannay dhowr maalmood ka hor meel u eg dukaan hubka lagu iibiyo oo jasiiradda ku yaala This is where I'm meeting Vlad. Take a look. This is like the most iconic survival rifle. It's designed for the pilots. I don't think I've ever seen so many guns in my whole life. muuqaalka ninkani wuxuu u muuqday sida nin filimada actionka matala wuxuu ii sheegay markii u horreysaba inuu doorbidayo inuu ka dambeeyo kamarada oo uuna rabin in fideogan isaga ku saabsanaado falaad maxaad qabataa waa maxay backgroundkaagu sidee ku timid halkan ma rabo inaan ka hadlo runtii waa sheeko dheer waxaan kuu sheegi karaa uun inaan si fiican u tababaranahay haddaba anigoo aan wax badan ka ogeyn haddana waxaan go'aansaday inaan si buuxda ugu kalsoonaado ninkan waxaan ula jeedaa runtii doorasho maan lahayn maalmo badan oo safar ah kadib welina aan soconnay jidhkayga aad buu u daalay tan iyo markii aan ka baxay norway waxaan markii ugu horraysay helay fursad aan ku seexday hurdo saxa balse intii aan jiifay anigoo dhegaysanaya mawjada badda maan joojin karin inaan ka fikiro meeshaan ku suganahay oo boqolaal mayl u jirta meel dad ku nool yihiin iyo jasiirad leh taariikh mugdi ah hadhow baan kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan tan waa jasiirad waalintani runtii aad bay u la yaab badnayd inaan halkan ka soo toosay anigoo dareemaya kelinimo aad u weyn eeg balkan waa buuggan jabaaniiska wuxuu ka hadlayaa lamaano jabaaniis ah oo ku noolaa jasiiraddan kadibna intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka waxaa jiray markab ku burburay badda 30 askari ayaana soo gaadhay xeebta waxayna ku noolaayeen muddo dheer halkan ugu dambayntiina waxay bilaabeen inay isdilaan sababtoo ah dhammaantood waxay rabeen isla hal gabadh markaa sheekadan ku saabsan katsuga higa waa mid ka mid ah sheekooyinka badbaadada ee ugu caansan taariikhda Jabaan markii dagaalku dhamaaday kooxdii askarta Jabaaniiska ahayd waxay diideen inay rumaystaan in Jabaan ay isdhiibtay halka dunida inteeda kale hore uga socotay iyagu waxay halkan ku qarsoonaayeen sanado oo quudinayeen qumbaha kalluunka biyaha roobka iyo wax kasta oo ay ka heli karaan jasiiradda si kastaba ahaatee muddo kadib go'doonsanaanta iyo kelinimada ayaa kala dishay kooxda raggii waxay noqdeen qaar masayra xulufooyin ayaa samaysmay dadkuna waxay u dhinteen sababo iyo duruufo dahsoon oo aan la aqoon dadka qaar ayaa rumaysan in uumiga fulkaanaha ka soo baxay ee jasiiraddu ay saameyn ku yeelatay maskaxdooda qaar kalena waxay ku eedeeyaan go'doonsanaanta ba'an daacaddiina markaan hadda dhex fadhiyo jasiiradda way adag tahay inaan fahmo sida meel qurux badan sidani dadka waali ugu ridi karto maanta waxaan isku dayaynaa inaan gaadhno meesha ugu sarreysa buurta kadibna halkaas waxaan ka sahmin doonaa diyaaradda haddii aan aragno berrina waxaan isku dayi doonaa inaan dhab ahaantii helno diyaaradda waa qasab kolley waxay taallaa meel halkan ka mid ah waayo wuxuu ka soo duulay dhinaca waqooyi isagoo ka yimid nagawey Jabaan howlgalka kadib waxaana ku timid cillad dhanka matoorka wayna burburtay nasiib darro dhammaan 12 shaqaale ee saarnaa way dhinteen meydadkoodina waa la soo helay 1946 laakiin mid baa la waayey oo ilaa weli maqan marka dhammaantood mid mooye intii kale waa la helay miyaa haa Jack L. Boyd ayuu magaciisu ahaa wuxuuna ahaa ridaha qoriga diyaaradda waa wiilka aan la helin ka mid fudud waa inaynu gaadhnaa halka ugu sarreysa fulkaanaha sidoo kale waa inaynu helnaa goobta ay diyaaradda ku burburtay ugu dambaynna waa inaynu helnaa diyaaradda laftirkeedii laakiin jasiirad sidan oo kale ah xataa qorshayaasha iska fudfududi waxay noqon karaanba qaar adag marka hadda waxaan arki karnaa inay jiraan laba jiho waa bidix iyo midig marka anigoo isticmaalaya diyaaradda daroonta waxaan eegi doonaa labada jiho ta wanaagsan iminka halkaasaynu ku sugannahay waxay leeg tahay in dhinaca bidix wanaagsan tahay iminka tani waa dhinaca bidix dhinacaasaa wanaagsan maxaad u malaynaysaa waxaan filayaa ilaa iminka inaynu si fiican wax wadno waynu arki doonaa markaynu halkaa gaadhno waayo ma garanayno wax xagga inay xiga ama koonaha marka waxaan filayaa ilaa iminka inaynu si fiican wax wadno meeshan roobka iyo qorraxdu aad bay isku bedbedelaysaa roobku 2 daqiiqo ayuu soconayaa kadibna wuu joogsanayaa runtii kamarada kama dareemi kartaan laakiin halkan aad bay u kulushahay xataa haddii imka roobku sidan u daayo way kulushay runtii dhulkan aan maraynay haddaba waxa uu ahaa mid adag sidoo kale roobkuna uu sii adkeynayay xaaladda sidoo kalena waxaan ka warwarsanahay in mar dhow qorraxdu dhici doonto ay madow noqon doonto
laakiin haddii aan rabno inaan halka ugu sarraysa gaadhno waa inaanu dhaqsannaa. waxaan tijaabinayaa in cawskan Norwegian-ka oo kale uu yahay aad bay iskugu dhawaaqeeg yihiin. laakiin waxaad mar dhow idii sheegtay ood lahayd fiidmeerta halkan ku nool waa fiidmeerta adduunka ugu weyn. ma run baa bal ka waran? haa, waa fruit bat-ka fiidmeerta loo yaqaano. waa dacwo duulaysa oo kale uun. waa sida bakaylo weyn. baalasheedu waxay gaadhaan 2 mitir. aad bay cabsi badan tahay baadaaye. haa, runtii aad bay u cabsi badan yihiin. waxay u egyihiinba Batman. bahashani waxay iska ahayd markii hore cunto dhaqameedka Jamooriga oo la iska ugaadhsan jiray, laakiin hadda waa la mamnuucay. waxay ku hoos jirtaa qaanuunka dowladda. ma qabsan kartid, sidoo kale lama ogola inaad ugaadhsato. jeelkaad ku gelaysaa baad sidaas samayso. 5 sano lagu xukumayaa. siday dadku u cuni jireen? waxay ku karin jireen caanaha qumbaha. dadkii ugaadhsan jiray waxay sheegeen inay aad u macaanid hilibkeedu, maxaa yeelay bahashani fruitska ayay cuntaa. fruitska ama midhaho keliya ayay cuntaa. hilibkeeduna aad buu jilcisan yahay, waanu macaan yahay. anigii ma qorshaysna inaan cuno bahashan. haddaba mar kastoo aanu kor u sii baxno oo aanu sii korno buurta, dhulku wuxuu sii ekaanayay mid la yaab leh. wax walba meesha ku saabsanna caadi may ahayn, gaar ahaan aamusnaanta, kulaylka cufan ee qoyan, fiidmeerta waaweyn ee dusheeda duulaysay 5 daqiiqo kastaba, iyagoo aad moodaba inay kusoo weerarayaan. mararka qaarkoodna sidoo kale waxaan isweydiiyaaba oo aan ka shakiyaaba ninkani la socda ee falaad. waxaanan is idhahdaa waa kuma ninkani? ninkan si fiican uma garanayo. dhab ahaantiina ma ku kalsoonaan karaa? imika haddaba waxaan buurta soo fuulaynay saacado badan. waxaana soo gaadhnay meel sare, laakiin halka ugu sarraysa fulkaanu weli way naga fog tahay. mar kasta aan u maleeyay inaanu soo dhowaanayna, cidhif kale ayaa daruuraha gadaashooda ka soo muuqanayay, kaasoo noo muujinayay inay weli noo hadhay inaannu sii soconno oonu sii korno buurta. boorsooyinkaanu xambaarsaneen aad bay runtii u cuslaayeen. temberaturekuna waxa uu ka sarreeyey 30 digrii wax gaadhaya. sidoo kale biyahaanu sidanayna waxay u dhammaanayeen si aanaan ugu talagelin. mar kasta aanu sii korno waa mar kastay sii adkaanaysay. daacaddiina runtii helitaanka diyaaraddu uma ekaynba caqabadda ugu weynayna hortaagan. Oh my God. saaxiib yaal, waxaan u malaynayay in waxaasi mas yahay, laakiin waaba xamaarata weyn. ma aragtaan? Hello. waxaan u maleeyayba inuu cabsiinayo. weli wax badan baa inoo hadhay saaxiibayaal. ma aragtaan buurta iga dambaysa? runtii waxay u egtahayba midaan macquul hayn in halka ugu sarraysa aanu gaadhno, gaar ahaan maanta. laakiin waa khatar runtii, sababtoo waxay u eg tahay in wax walba ay kala jabayaan. waxaaban ka baqayaa in wax walba burburaan oo xadhigga ay hoos jiidaan. Whoa. Oh my God, yeah, this is not. And this is also like Yeah, that's also the same. Careful. Yeah, like that. Now it's better. waan daalayba runtii, hurdaan iyo u baahanahay. we can little by little. Yeah. You can. Don't look back. Like I'm good. Like I'm. That was definitely not risk-free, that part. haddaba waxaa la gaadhay waqtigii aanu seexan lahayn. caguhu runtii aad bay ii daaleen oo ay burbureen. daal ayaanan kaxla ahaa, laakiin dhibaatada keliyana haysataa waxay ahayd inaanan weli helin meel wanaagsan oo aanu seexan karno. ma sheegi kara in halkan wanaagsan tahay. waxaan islaabay iminka taandhada ku xidho, haddii kale baraf baynu dhibannaa. Yeah. waxaan rajaynaya inaan roob inagu dii doonin. waa halkaanu ku sugannahay iminka. waa ceeryaamo iyo roob, weliba aad bay u qabowdahay. waynu daalnay saaxiib. habeenku si dhaqsale ayuu u soo dhowaanayay. waxaanan ku xayirnayn meel sare oo u dhow fulkaanaha, iyadoo weli aanaanu helin dhul siman. sidoo kale welina maanu gaadhin halkii ugu sarraysay ee buurta fulkaanaha. buurta halkeeda sare meel u dhow ayay diyaaraddu ku burburtay, waana halka aanu ka raadinayno. Yeah. waxaan rajaynayaa inaan berito la heli doono diyaaradda, waana waxaan halkan u nimidba. halka ugu sarraysa inaanu gaadhnana runtii aad bay wanaagsanaan doontaa. And since I know a lot of people are gonna ask what I'm eating tonight, chicken and rice. That's on the menu. kaasi wuxuu ahaa runtii mid ka mid ah habeenada ugu xun ee aan weligay seexday. mar kasta oo aan dhinac isku rogo, jidhkayga wuxuu bilaabayay inuu u siibto dhinaca buurta, oo mar kasta oo indhaha isku yar qabtaba oo daqiiqada yar aan hurdo, haddana waan toosayey maadaama meeshu ay aad u qaboobayd, sidoo kale meel raaxalana aanay ahayn. maalintii inta lagu guda jiro, kulaylku aad buu daran yahay, halka habeenkiina uu heerkulku aad hoos ugu dhaxayo. haddaba maalintii xigtay markaan soo toosay aan saacadayda eegay, waxay ii sheegaysay in 45 daqiiqo oo keliya oo hurdo fiicana aan seexday xalay.
runtii habeen aad u adag bay ahayd taasi bal eeg meeshan sidee u dheer tahay halkan waa meeshii xalay aan seexnay halkanna falaad baa jooga aniga uga sii yara sareeyey xataa taandhadayda iyo waxyaabaha sidoo dhan way wada qoyanaayeen ilaa imika wax walbay qoyan yihiin maryahana iyagoo qoyan baanu xidhanayba oonu dib ugu ceshanay shandadii. This is luxury, man. Thank you so much. I guess it's really hot. Can I grab this or is that hot? No. Leave it. Leave it? Yeah. We still need it. Oh, yeah, leave it and Absorb then it. press it. Yeah. Okay. Aroma. You need the aroma to mix with the water. You really know your coffee, huh? That looks great. waxaanu sii wadnay haddaba fuulista runtiina uu iga lumayba wakhtiga aanu meeshan ku qaadanay inta uu leekaa hadafku weli waxa uu ahaa inaanu helno diyaaradda laakiin waxaa ka horraysa intaanaanu raadin meesha diyaaraddu ay ku burburtay inaanu ugu horrayn gaadhino halka ugu sarraysa buurta godadkan dhudhuman baa meel kasta ku yaalla runtiina khatar bay noqon karaan falaad wuxuu ii sheegay in qutadooda ay gaadhi karto ilaa 10 mitir markaa way ku liqi karaanba haddaba kadib markii aan saacado buurta fuulaynay sidoo kale dhibaato weyn aanu la kulannay oo weliba aanu isweydiinin oo aanu la yaabannahay haddii aanu gaadhi karnaba meesha iyo in kale waxaanu ugu dambayn gaadhnay halka ugu sarraysa ee jasiiradda. That is beautiful. halkaas sare inaad ka soo eegto ood soo istaagtana waxay ahayd mid aan la rumaysan karin runtii ma jiro dad naga horreeyey oo halkan hore u soo istaagay waayo sida uu inoo sheegaya falaad waxaanu nahay kuwii ugu horreeyey halkan soo gaadha saaxiib waynu soo gaadhnay ugu dambayn waynu ku guulaysanay inkastoo diyaaraddii aynaan weli helin ma aragtaa meesha hoose halkaa hoose ee sida daloolka la moodo haa taasi waa meeshii uu duulayey markii uu ku dhacay waa halkaa imika biyuhu ay fadhiyaan waxaan maqlayaa sanqadh dhulka hoostiisa ah waxbaaba igu leh waa fulkaane talama fulkaana misoo dabaysha haddii wax sanqadh aad maqasho waxay noqon kartaaba ruux jabaanaysa sida boqoradii anataah oo kale may waxaan dareemayaa sida gariir oo kale lugahaygaan ka dareemayaa yaro gariir ayaan lugaha ka dareemayaa haddaba intii aanu raadinaynay diyaaradda waxaan iloobayba inaannu ag joogno goob fulkaano oo aktifa qaraxii ugu dambeeyey ee weynaana waxa uu dhacay qiyaastii 20 sanno ka hor taasoo hadda la micno ah in fulkaanahani uu mar labaad qarxi karo daqiiqad kasta imika. Oh, come on. It's like the vegetation is grabbing hold of me. kasoo degidda buurtu waxay noqotay mid ka adagba sidii aan u malaynaynay waxay nagu noqotayba jaxiimo aanu ka soo daadegayno oo hoos u qodan taasoo isla si dhaqsaha u noqotay mid aad u cajiiba. I have no idea if anything's gonna hold. Okay, sending it. Okay, something stopped me. Bleeding and stuff too. saaxiib waxaan ka yimid bogoskayga caafimaadka uu iga soo lumay haa miyad weyday taasi ma wanaagsana waad heshay somaa imika. Fucking hell. Oh, we found it. It's good to have because we're not getting any medical attention out here. waxaanu sii wadnay lihirdanka dhirta cufan ee keynta laakiin waxaan la kulannay dhibaato kale saaxiib yaal halkan horteenna dhulka si lama filaan ayuu iskugu beddelay hoosu dhacan weyn tani ma fiicna tani runtii ma fiicna korka sare markaad ka eegto runtii macquul maaha inaad ogaato inta uu qoto dheer yahay waxay noqon kartaaba 15 mitir ama malaha 20ba ama ka badan taasina runtii waa dhibaato waayo xadhigga aan sitay dherarkiisu wuxuu gaadhaya 22 mitir oo keliya taasoo la micno ah in aanan haysan wax badbaada ah haddii hoosu dhacani wax yar ka weynaado sidii aanu filaynay xadhiggu si fudud uma gaadhi doono dhulka sidaa darteed waxaynu haysanaa un 2 doorasho ka koowaad ah inaynu isticmaalno dhammaanba inta uu dherar leegyahay xadhiggu innagoo dhulka kusii wada daynayna oo rajaynayna inuu gaadho dhulka ama inaynu meeshaas kaga noqonno laakiin dib uma noqon karno taasina doorashayna ma aha waayo wakhti kale oo dheer ayay nagu qaadan doontaa inaynu dib u korno runtiina biyuhu way naga sii dhammaanayaan taasoo runtii khatar aada noqon karta halkan runtii ma jiraan meelo badan oo wanaagsan oo lagu dhejin karo laakiin waxaan isku daynay inaanu dhagax ku marmarno taasina noomay shaqayn hadda waxaan isku dayayaa dhagax yar dhagaxan baan isku dayayaa kan runtii waa dhaqaajin karaa laakiin haddii uu kusoo durko dhagaxa weyn friction badan ayuu samayn doonaa taasina caadi bay noqon doontaa laakiin waan ogahay in shilal badan ay sidan ku dhaceen dhagaxa ayaynu isaagu xidhi karnaa kadibna waynu adkaynaynaa markaa qorshu waxa weeye adigu marka hore hoos udaadeg kadib waxaan kuu soo dhiibayaa dhammaan boorsooyinka kadib baan ana soo degayaa okay waa sax. Okay, man, have fun. Okay. Okay. It's gonna be interesting to see if he's actually gonna be able to get all the way. If not, we're in big trouble. How far are you? ma degtay dhulka ma taabatay 2 mitir oo kale waa inaanu sii daayaa 2 mitir oo kale waayey
waxaan filayaa in intaas ku filan tahay 2 mitir oo kale uu weydiiyey okay haddaba imika waa markaygii si aan u daadego waxaan filayaa in halkan uu sidaa u sii haysto Okay. Easy. okay haddaba imika dib u noqo oo xadhigga soo qaad You know, when I cut the rope, I was like 20 meters, and I was like, I had 2 more. Yeah. And then good. that was perfect. You know that. Yeah. Good job, Magnus. I hope we're down and we don't need any more rope. Never say. Don't say. Yeah, I'm not gonna jinx it. We should cut. There's some more rope, at least, just in case. We could cut, yeah. At least something what you can reach. Yeah, if you give me a knife. Yeah. I actually need to free solo down here. I'm gonna try to attach the rope to something at least, though. markani waa markii ugu horeysaan warwaro intaa safarkan ku jiray waxaan filayaaba wixii ugu nacasaysnaayeen sameeyay inay tahay xadhigga halkaasaan ku dhejistay Oh shit. Awesome. You doing good? You doing good? You doing good? You doing good? Okay, You're good. good. Oh, good job. Yeah. ugu dambayntiina kadib soo daadagaas u muuqday mid aan dhammaad lahayn waxaan hoos ugu soo degnay godka koowaad markii ugu horreysayna tan iyo bilowgii howlgalkan waxaanu dareennayba inaan u soo dhowaanayno goobta burburka haddaba marka loo eegayo warbixinada hore iyo macluumaadka aanu sii raadinay safarka ka hor diyaaraddu waa inay taallaa meel ka mid qaybtan jasiiradda weliba gudaha godkan fulkaanaha oo gebi ahaanba ka go'doonsan adduunka dibadda markan hareerahayga sidaa u eego daacaddii waxay u egtahay inaan kasoo duldegnay meelo kale iyadoo dhinac kasta ay naga hareeraysanaayeen jararka buurta ee waaweyn ciid madow iyo runtii inaanay wax calaamadii ka muuqan in wax bilaadan halkan hore u yimaadeen laakiin jasiiraddu sanadadii ugu dambeeyay aad bay isku bedeshay dhammaanba gunta godka fulkaanaha oo dhan waxaa hadda buuxdhaafiyey biyo ka yimid duufaanta iyagoo biyahaasi qaybo waaweyn oo dhulka ka mid a u bedelay daloolo wakhtigan ilaa hadda waxaanu soo soconay muddo aad u dheer oo jidhkaygu gebi ahaanba bilaabay inuu daalo laakiin maskax ahaan waxaan ahaa mid aad diiradda u saaraya waayo hadda aad baan ugu soo dhowaanay hadafkaygii sidoo kalena kadib markii aanu samaynay wax walba oon awoodnay si aan halkan usoo gaadhno waxaanu dareensanaa inaanu sii wadno baadhitaanka maxaa yeelay meelahan un ka mid ah oo ku hoos qarsoon kaymaha tobnaanka sanno korayey dambaska fulkaanaha iyo duufaanada waxaa qasaba inaanu ka helno astaan muujinaysa diyaaradda B-29 Pamber halkan waxaa ku qoran diyaaraddu inay kasoo dhex gashay godkan fulkaanaha dhinaca waqooyi bari ee jasiiradda iyadoo sii martay meesha ugu hooseysa ee cidhifka markaa taa macnaheed waxa weeye waa halkaa kadibna ay u wareegtay dhanka bidix oo intaas kadibna ay si toosa ugu dhex dhacday meelaha sare ee dhinaca koonfur bari marka halkaasi kasoo duushay kadibna waxay ku burburtay meel dhinacaas ka mid ah waa sidaan filay waxaan meeshan ka akhriyey markaa khariidad waxay sheegaysaa inay kasoo gashay halkan kadibna halkaa ku dhacday taasi waa sida ay sheegayaan ilaha jabaaniiska ah markaa waxaa kale jira ila jabaaniisa iyo qaar maraykan ah labadooda wax kala duwan bay sheegayaan bilowgii 1945kii koox Ameerikaan ayaa soo booqday meesha diyaaraddu ku burburtay waxayna halkaa ku aaseen hadhaagii dadka diyaaradda saarnaa meydadkoodii markaa waxay dhabahantii yimaadeen halkan waxay heleen diyaaradda xawaalay u qodeen kadibna halkaasay ku aaseen hadhaagii shaqaalaha markaa waxaan filayaa wax badan kama hadhin iyaga waxaan malaynayaa inaanay wax badan ka hadhinba diyaaradda waayo halkan bay ku qoran tahay diyaaraddu aad bay u burburtay sidoo kale qarax baa dhacay kadibna dadkaasi way gubteen wax saa si badan oo ka hadhay markaa ma jiro laakiin diyaaradda daroonta ayaanu kicin doonaa innagoo meelahan dhowdhow yara duulduulin doonaa waxaanu dul marin doonaa labadaa dhinacba iyo dhinacan kaleba waayo laba iloodoo kala duwan baynu macluumaad imka ka helnay wax kala duwanna way inoo sheegayaan labadaba waynanu eegnaa No, there's something wrong with the rotors. I think there's sand or something in them. What the? It's a sand. Yeah. Oh, it's the magnetic sand. It's magnetic, so it's gone into the rotor. All this sand is stuck to my magnet. That's not normal. waxaama filaya imika daroontaydu waa kan uga xiirlaaday waana sababta diyaaraddu ay u burburtay sidaan filayo waayo waxaa soo jiitay ciidan magnetka ah markaa ma jiraan wax calaamada oo diyaaradda ah meelahan oo dhan laakiin waxaa laga rabaa inaan diyaaradda duuliyo oo aan raadiyo laakiin imika ma awoodo sababtuna waa magnetka ciidda ku jira marka hore waxaad igu tiri wax xayawaan iyo jasiiradan ma joogaan
laakiin iminka halkan waxaynu ka arkaynaa raad muujinaya in waxani sida bisadoo kale uu yahay eeg baltan waxaa la moodaaba inaan anagu samaynay laakiin waxaa idin balqaaday inaan anagu waxaan samayn tanina runtii waa la yaabba waayo sida ay saynis yahanadu sheegayaan ama ragga ku takhasusay xayawaanada waxay ahayd inaanay wax xayawaani halkan oo noocan oo kale ahi ku noolayn ama jasiiradan waayo jasiiradda anatahan waa mid ka mid a jasiirada ugu fog uguna qallafsan silsiladda Mariana Islands lagama helayo ama ma yaalaan wax biyo macaan ah oo la cabi karo waxay sidoo kale leedahay dhaqdhaqaaqyo fulkaanik ah sidoo kalena kadib qaraxii weynaa ee 2003 badiba deegaanku wuu baaba'ay taasoo la micnaa in helitaanka raad cusub oo aynu halkan ka helna ay tahay waxaan caqligal ahayn haddaba kadib markaanu sawiradan qaadnay waxaan u dirnay khabiir ku takhasusay duurjoogta waxaanu noo xaqiijiyey intani dhab ahaantii ay tahay nooc ka mid ah xayawaanada bisada markaa waxaa laga yaabaa inaan helnayba raad cag oo ka mid a nooc cusub oo aan la garanayn sidoo kalena waxaa jiray wax qalbigayga ku soo dhacayay taasoo ah inaan ogaanay xayawaanka raadkan lahi inuu weli meelahan ku sugan yahay Oh my freaking god! Holy shit, that's beautiful. midabkaas turquoise-ka ah ma garanay haddii aad arki karto laakiin waa mid aad u qurux badan waxay u eg tahayba wax ku jira Lord of the Rings waa cajiib runtii taasi waxa jiraba meelo bannaan oo xunba ka soo baxayso waxaan doonayaa inaan meeshan hoos ugu dhacdhaco oo aan harada ku soo dabaasho laakiin uma malaynaya intaasi fikrad fiican ay tahay sababtaa waa fulkaano active haddaba ugu dambeyntii inkastoo aan gaadhnay meeshii diyaaradda ay ku burburtay maan awoodin inaanu helno wax raada oo ku saabsan hadhaaga diyaaradda taana waxaa sabab u ah maadaama oo diyaaradda intii badnayd ay gubatay burburka kadib intii ka soo hadhayna waxaa aasay dambaska fulkaanaha ee tobnaanka sanno meeshan kusoo dhacayay haddaba wax kasta oonu samaynay si aanu halkaa u gaadhno waxay ahaayeen dareen la yaab leh taasoo ah inaannu dhex istaagnay jasiiradda annagoo weliba og in diyaaraddu meel ka mid a jasiiraddan ay ku jirto laakiin haddana aanaanu helin wax raada oo ku saabsan intaa kadib haddaba markii aanu habeen kale oo dheeraada kusii qaadanay jasiiradda waxaanu dib ugu soo noqonnay halkaanu ka soo galnay dabcanna runtii waxaan dareemayey dareenno kala duwan markaan arkay doontii oo ii soo socota haddaba dhinac marka laga eego waxaan dareemay oo aan ku faraxsanaa oo sidoo kalena aan ku fahanayay waxaan qabtay waa lana badbaadinayaa saaxiibayaal howlgal aad u cajiib u ahaa saaxiib dhammaanba jasiiradda waan wada dhex marnay meelo badan ayaanu marnay cid ku sugnayd maanu arag sidoo kalena waxaanu la kulannay xaalado badbaado oo ka adkaa intii aan filayey laakiin haddana sidaasay tahay weli waxaan dareemayay inaanaan waxba dhammaystirin waayo weli maanu helin diyaaradda aanu raadinaynay taasina runtii way dhibaysay laakiin safarkan weli muu dhammaan Get to see another face. No offense, Vlad. haddaba markaanu doonta dib ugu soo soconay aan soo laabanaynay falaadh wuxuu ii sheegay inay jirto goob kale oo diyaarad ay ku burburtay B29 ah taasoo ah mid ku burburtay meel u dhow Saybaan intii lagu guda jiray bilihii u dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka sanadii lasoo dhaafayna dadka deegaanku iyo saamiyaashu waxay sheegeen inay heleen qaybo burburka diyaaraddaas ka mid ah oo ay ka heleen kaymaha dhexdooda sidaa darteed maadaama oo ilaa halkan aynu soo gaadhnay marka halkii aan iska laaban lahayn waxaynu samaynay qorshe cusub hadda waxaan helnay qoraalle hore iyo sawir gacanta lagu sameeyey oo loo malaynayo inay ku calaamadsan yihiin meesha burburka diyaaraddu waxay ahayd B29 nambarkeeduna wuxuu ahaa 429460 taariikhda markay ahayd May 1945 diyaaraddani waxay ka soo laabatay howlgallo ka dhacay dalka Japan markii cimiladu ay xumaatay oo ay ku qasabtay shaqaalihii inay diyaaradda u soo celiyaan dhanka Saybaan laakiin duruufo aad bay u xumaayeen aragtiduna way yarayd shaqaaluhuna waxay raadinayeen waddo sayfa oo ay kaga dhuuntaan duufaanta waxayna si aad ah oo khatara ugu soo dhowaadeen meesha ugu sarraysa ee jasiiradda meel u dhow buurta Taibuna diyaaraddu waxay ku dhacday dhinaca buurta haddaba qaar badan oo ka mid a askarta diyaaraddaas saarnaa waxa uu ahaa howlgalkoodii ugu horreeyay ee dagaalka waa dagaalkii labaad ee adduunka inta badan shaqaalaha diyaaradda ama askarta saarnaayeen waxay ahaayeen qaar aad u da'yar howlgalkanna waxa uu ahaa howlgalkoodii ugu dambeeyey waayo cid ka badbaaday may jirin haddaba sanado badan keynta ayaa si tartiib ah u liqaysay amaba u aasaysay burburka diyaaradda birihii diyaaradduna waxay ku hoos taxaliisteen geedaha goobtaas burburkuna waxay noqotay mid ka mid a taariikha la ilaaway oo ku duugan meel ka mid a Saybaan marka saaxiibayaal hadda waxaan teginaa keynta waxaanu sidanaa faash dhirta ayaanu iskaga jarjarinaa sidaad saaxiibayaal ogtiin duufaan baa halkan ka dhacday tanina runtii saaxiibayaal waxay noqon doontaa raadkeena ugu dambeeya halkan haddii aynu waxba ka weynana gebi ahaanba safarkan wuxuu noqon doonaa mid ku dhammaada bilaa jawaabo ama bilaa natiijo waxaanu sii dhex jabaaxnay dhirta cufan annagoo baadhaynaa dhulka oo dhan laan kasta oo jabtay iyo wax kasta oo aan dabiici ahayn oo ku qarsoon dhulka kaynta mar kasta aanu sii gudagalnana kayntu way sii aamusaysay balse isla markii aan u malaynayba in halkanayna tahay meel aan ku hungoobayno falaadh ayaa si lama filaan u istaagay Oh, speaking of the gun, super nice. Oh, wow. tan ma aragtaa haa waxaan u malaynayaa in dhab ahaan birtan ka mid tahay diyaaraddii 1944 haa kani waa qorigii diyaaradda ee dhabta ahaa ee diyaaraddii B29ka
kaama aragtaa rasaastaas waa 50 kaal marka tan macnaheedu waxa weeyaan in diyaaradii soo dhawaanay miya diyaaraddu buurtan hoosteeda ku dhacday tanina waa calaamadii ugu horeysay ee diyaaradda taasoo ku burburtay Saipan 1944 bal ayaga saaxiibayaal ma u malaynaysaa inay tahay matoorkii waa mid ka mid ah matoorada diyaaradda waa run kaasi waa matoorkii dhabta ahaa wuxuu yaalaa keynta kan waa matoorkii diyaaradii ku burburtay halkan 1945 halkan keyntu aad bay u kulushahay waa matoor kale waa propellerkii eegbaltan waxaan u malaynayaa in baal ay tahay baalka diyaaradda saaxiibay ugu dambeyn safarkeenu intaasuu ahaa runtiina wuxuu ahaa mid ka mid ah haddii aan u ahaynba experience-kii ugu xasuusta badnaa ee noloshayda iyo weliba safarkaan galo runtiina waan rabaaba inaan wax badan oo sidan oo kale sii sameeyo muuqaalkuna intan ayuu ka egyahay haddaba saaxiibayaal halkan haddii aad soo gaadheen subscribe-ta noo saara sidoo kale muuqaalkana like-ta saara saaxiibayaal sidoo kale waxaad nagula wadaagtaa halka hoose halka aad naga daawanayso qaybta commentiga hoose kusoo qora saaxiibayaal waxaa soo qori doona dadka ilaa halkan soo gaadhay ee dhamaystay muuqaalka aad baad mahadsantihiin waa inoo muuqaalada xiga assalaamu calaykum